السلام عليكم. haddii bataata macaanka aadan jecleen naftaada ha ku qasbin i aamin sababtuu miisaanka kugu koraayo maaha inaad baasto iyo bariis cunayso. weight gainka ama inuu miisaanku koro mar walba waxay ka imaataa sida jirkaaga oo blood sugarka sokorta u handle gareeyo iyo insulinka. tusaale yar ku siinaa, haddii aad baastada cunto ay jirkaaga gasho waxay isku bedelaysaa wax la dhaho glucose. glucose-ka markay isku bedesho haddii meesha aysan khudaar ku jirin ama protein fiican uusan cuntadaada lahayn, waxaa dhacayso in ay kor u kiciso sokorta dhiigaaga. mar walba blood sugarkaaga ee cirka geysana waxaa trigger lagu sameeyaa ama hurdada laga soo kiciyaa insulinka. insulinka shaqadiisa waa maxay? baastadii soo gashay in inta jirkaaga uu u baahan yahayna unugyada uu u qeybiyo, inta soo hartana uu storage ka dhigo. laakiin baastada aad cunaysid hadday qiyaasan tahay inta jirkaaga uu u baahan yahayna ay tahay, insulinka hadduu qabto unugyada jirkaaga wuu waraabinaa, meel kale baastada kaa aadaysa ma lahan. hadduu bariis yahayna sidoo kaleete. muhiimadda marka waa inaad portionkaaga controlshaa. waxa aad cunaysa qiyaasteeda waa inaad taqaanaa. waa in khudaar cuntadaada laga helaa. waa in protein fiican cuntadaada ay leedahay. dabcan videogan video ka horeyn waxaa idinku tusiyey apple cider vinegarka 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ka hor marka aad rabto inaad carbohydrate cunto ka hormari. i aamin, weight lossku waa safar. safarkan wuxuu ku fiican yahay in lagu raaxaysto. asalaamu calaykum.